Assalaamu calaykum. Muuqaalkeenan waxaan idinkula wadaagi doonaa taariikhda inta la hubo dilaagiga ugu khatarsanaa dalka Mareykanka. Waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo isku darsaday qurux iyo xishood. Dhibanaha uu dilayana waxa uu ku soo jiidan jiray farxadda iyo dhoolla-cadeynta ka muuqata wejigiisa. Dilaagan dhibanayaashiisu waxay u badnaayeen dumar khaas ah, kuwaasoo ay daadoodu u dhaxaysay 18 ilaa 22 jir. Ted Bundy waxa uu dhashay sanadkii 1949 wuxuuna ku dhashay sifo sharci darro ah, yacni hooyadii ayaa garcatay oo ninkani wicil ayuu ahaa. Haba yaraatee waqtiga may jirin cid garanaysa wiilkan yar aabihii, wuxuuna ku soo koray guriga awowgii iyo ayeeyadii iyagoo ku qanciyay inuu yahay wiilkoodii. Muddo kadib wiilkii yaraa markii uu noqday 4 jir waxay isku dayeen inay u sheegaan hooyadiisa dhabta inay tahay gabadh lagu magacaabo Louise oo uu isagu u haystaba inay tahay walaashiisa ka weyn, maadaama oo yaraantiisii ay ku qanciyeen inay iyagu dhaleen. Arrintaasi may suurtagelin waayo wiilka da'diisu aad ayay u yarayd, hadalkoodiina haba yaraatee wax saameyn kuma yeelan. Haddaba hooyada wiilkan yar oo lagu magacaabo Louise waxay guursatay nin kale, waxayna u soo guurtay meel ka fog meeshii ay deganaayeen, iyadoo hore u soo wadatay wiilkeedii yaraa oo isagu weli u haysta inay tahay walaashii. Wiilkii yaraa wuxuu bilaabay nolol cusub, markasta oo ay da'diisu sii weynaatana wuxuu ku fikiri jiray cidda ay yihiin waalidiintiisu. Ugu dambeyn sanadii 1972 Ted Bundy waxa uu suurta gashay inuu ka qalin jabiyo jaamacad ku taalay gobolka Washington, wuxuuna ka bartay cilmi nafsiga. Isla waqtigana wuxuu uga soo wareegay jaamacad lagu barto culuumta sharciga oo ku taalay gobolka Utah. Ted Bundy waxa uu halkaa ka jeclaaday gabadh aad u qurux badan oo ka soo jeeda qoys maalqabeen ah. Markii uu dareenkiisa u sheegtayna nasiib wanaag way ka aqbashay. Intii uu xiriirkoodu socday, Ted waxa uu isku qanciyay inuu helay wixii uu noloshiisa ku riyoonayay, taasoo ahayd inuu helo gabadh la qaybsata noloshii adkeyd ee uu soo maray. Balse muddo kadib gabadhii waxay si sabab la'aan ah u jartay xiriirkoodii, wuxuuna galay xaalad adag isagoo ku sigtay inuu isdilo. Muddo kadib uu soo kabtay, waxaana u suurta gashay inuu ka baxo xaaladii adkeyd ee uu ku jiray. Wuxuu dhisay kalsoonida naftiisa ilaa uu ka takhalusay xishoodkii xad-dhaafka ahaa ee ka dhex saaray dadka. Wuxuu dhex galay arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Intaa kadib wuxuu helay warqad shaqo oo ka timi gudoomiyihii gobolka Washington, maadaama uu ka soo shaqeeyay ololihiisii. Ted wuu ku farxay warqadii, waxaana uu dareemay inuu joogo waqtigii uu wax ka bedeli lahaa noloshiisa, horumarna gaari lahaa. Laakiin baadhis iyo dabagal dheer kadib wuxuu ogaaday hooyadiisa dhabta inay tahay Louise oo uu haystay inay tahay walaashii ka weyn. Taasina waxay sababtay inuu galo xaalad ka adag tii uu hore ugala kulmay gabadhii uu jeclaa, wuxuuna nacayb iyo cuqdad xad-dhaaf ah u qaaday cid kasta oo sheegata magaca dumar. Wiilkii dhalinyarada ahaa ee farxadda iyo dhoolla-cadeyntu ka muuqatay wejigiisa wuxuu isu bedelay dilaa dhiig-yacaga, wuxuuna go'aansaday inuu ugaarsado dumarka, gaar ahaan hablaha ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 22 jir. wuxuuna dili jiray midiba midda ay ka soo jiidasho badan tahay kana qurux badan tahay. Dilkiisii ugu horreeyay wuxuu geystay sanadkii 1974, xilligaasoo booliska Mareykanku ay heleen meydka gabadh lagu magacaabo Linda oo culuumta sharciga ka baranaysay jaamacad ku taalay gobolka Washington DC. Dambi-baarayaashii markii ay baadheen qolka Linda waxay sariirteeda ka heleen dhiig, waxayna ogaadeen dilka ka hor gabadhan in loo geystay afduub, balse haba yaraatee may helin wax raad raac ah oo ay ku dabagalaan gacan ku dhiiglaha. waanay ku fashilmeen, waxaanay halkaa kiiskii ugu aqoonsadeen inuu yahay cold case. Haddaba dhacdada dhowr bilood kadib booliska waxa soo gaadhay war sheegaya in la waayay gabadh ardayad ah oo lagu magacaabo Donna, taasoo markii cid ugu wardambeysay ka soo baxday gurigooda kuna sii jeeday xaflad ka qabsoomaysay hoolka jaamacadeeda. Intaa kadibna aan la helin meel ay jaan iyo cirib dhigtay. Jabo waa ka dambeeyay haddana booliska waxa mar kale soo gaadhay in la waayay gabadh 18 jir ah oo lagu magacaabo Susan, taasoo iyadana markii cid ugu wardambeysay ku socotay shaleemada laga daawado filimaanta. Intaa kadib waxa kor u kacay kiisaskii hablaha la waayayo ee u badnaa ardayda. Booliskii Mareykankuna waxay taag iyo maaro u waayeen sirta ka dambaysa dhacdooyinkan cajiibka ah ee isu eeg ilaa ay si aad u kordheen horaantii bishii Abriil 1974, xilligaasoo hal mar la waayay 4 gabdhood, taasoo ama kaag iyo argagax ku riday muwaadiniintii dalka Mareykanka. Booliskuna waxay sii labalaabeen dadaalkoodii ay ku baadhayeen gacan ku dhiiglaha, waxaana markii ugu horreysay u suurta gashay inay ururiyaan cadeymo sax ah, iyadoo tiro goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobtii laga afduubtay 4 gabdhood ay isku raaceen inay arkeen wiil qurux badan oo timo maariina leh, isla markaana caawimo ka dalbanayay 4 gabdhood, isagoo ka codsaday inay doon shiraaqle ah kala soo saaraan baabuurkiisa. waxayna xilligaa boolisku daha ka qaadeen in gacan ku dhiigluhu ugaarsanayo hablaha aadka u da'da yar. Haddaba gacan ku dhiiglihii wuxuu si kadisa ugu soo dhacay gacanta booliska sanadii 1975 kadib markii booliska wadooyinku ay joojiyeen gaadhi uu la socday Ted Bundy, waxayna markay baabuurkiisii baadheen ay ka heleen waxyaabo ay ka mid ahaayeen marada wejiga lagu xidho, xadhko iyo weliba mindiyo, taasoo shaki sii gelisay booliskii. su'aalo iyo waraysi dheer kadib wuxuu si dhib yar u qirtay dembigiisii, wuxuuna booliska u sheegay inuu dilay inta ay og yihiin in ka badan. Haddaba arrinta la yaab kale ayaa ah inuu ninkani waraysiga ku sheegay gabadh kasta oo uu dilo inuu u galmoon jiray meydkeeda. cajiib, alla maxaa adduunka dad inagula nool. Ugu dambeyn sanadii
1981kii Ted Bundy waxa lagu xukumay dil waxaana daaha laga qaaday tirada haweenka ee uu qudha ka jaray inay kor u dhaafayeen 50 hablood oo ay da'doodu u dhaxaysay 18 ilaa 22 jir. Haddaba daawadaha qiimaha badanow sidee bay kula muuqataa qisadani? Faalladaada commentiga nagu reeb.